إنا لله وإنا إليه راجعون. الله naxariistay laba ganacsato Soomaali ah ayaa lagu dilay deegaanka Matola ee magaalada Randbood oo qiyaastii 20 kiiloomitir u jirta magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Dilkani ayaa yimid kadib markii 6 nin oo hubeysan ay weerar ku soo qaadeen goobtani ganacsi xilli ay ganacsatada Soomaaliyeed ay ku guda jireen howlahooda shaqo. marxuumiinta geeriyootay ayaa rasaasta waxay ka haleeshay qaybta sare ee wadnaha waxa ayna ku geeriyoodeen isla goobtaasi. الله naxariistay marxuumiinta geeriyootay ayaa lagu kala magacaabi jiray Cabdirasaaq Cabdullaahi Xasan iyo Shaafic Cabdiraage. ciidamada booliiska ayaa goobtaasi soo gaaray waxa ayna baaritaano guud ay ka sameeyeen xaafadda isku raranta ee deegaankaasi. mar aan la hadlay taliyihii horkacayay ciidamadaasi ayaa waxa uu sheegay inaysan jirin cid ilaa ay iminka loo soo qabtay falkani balse ay jiraan dad lagu tuhunsan yahay inay falkani ka dambeeyaan balse la soo xiri doono si su'aalo loo weydiiyo. mid ka mid ah raggii ka badbaaday falkani isla markaana goobjoog ahaa ayaa TV-ga caalamiga ah Hong Cable uga warbixiyay sida ay wax u dhaceen. markii soo baxay dibadda soo baxay magaalada carraqoodii waxay ku tagtay dukaanka hortiisa keligii oo ku dhex jiray dukaanka ka sanfay yaan la jiifay ka bacdi markii magaalada ay tiirka wiilka ugu jiray ka dambana soo baxeen dibadda u soo baxay dibadda markuu soo baxay isna waxay ku tagtay magaalada dukaanka hortiisa ka bacdi waxay qaadan kareen bay qaateen way soo carreen kasanka meesha magaalada ku jiray ay jiifeen soo baxay ka bacdi aan la soo baxay wiilshu meedaha magaalada ayaa lagu maray dukaanka hortiisa bilaabay saad soo galeen ba annakoon waxay lagu soo galeen magaalada saxaabad iyo koob magaalada saartay meeqay hayaan rag lixnin baa lixnin ma waa hubaysnaayeen maxay ka qaateen dukaanka waxay ka qaateen aduu lacag 10 kun oo raana iyo 5 kun oo item iyo wixii kale gacanta ay gelin kareen magaalada saayay waxay ahayd salaadii maqrib around 6 iyo barkiga. sidoo kale mid ka mid ah dadka deegaankaasi oo ka agdhawaa goobtaasi xilliga uu falka dhacayay ayaa isna inoo sheegay waxa ay indhihiisa ay qabanayeen. waxaan maqlayay xabado saacaduna waxay ahayd abaarihii 12 iyo 20 maqribnimo. waxaan arkayay qof ordaya oo haddana dhacaya. waa mid ka mid ah saaxiibaday waan ka xumahay waxaan rumaysanahay ma aha markii in kugu horeysay oo dib noocan oo kala ah oo in ku dhaco aad ayaan oga xumahay arrintaasi. ninkani oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri wasiirka amniga waxaan ugu baaqayaa in uu wax ka qabto dhibaatada caynkan oo kala ah iyo waliba dadka falalkani geysta. I can say even to the Minister of Safety and Security can do something about the robberies because inta kadib waxaa halkaasi soo gaaray qusulka Soomaaliya Maxamed Cali Mire Nabadoon iyo sidoo kale xogayaha koobaad ee safaaradda Soomaaliya ee dalkan Koonfur Afrika mudane Soomane. waxa ayna halkaasi kula hadleen ciidamadii halkaasi baaritaanka ka sameynayay ayagoo sidoo kalena dardaaran u jeediyay Soomaalidii halkaasi isugu soo baxday. deegaankani oo shilka ka dhacay ayaa waxa isugu soo baxay dadweyne aad u tiro badan oo Soomaali ah kuwaasi oo ka xumaa dilka loo geystay muwaadiniinta Soomaaliyeed. deegaankani ayaa waxa uu 20 kiiloomitir qiyaastii u jira magaalada Johannesburg ee dalka Koonfur Afrika. Xasan Kaafi Maxamed Shire, deegaanka Matola, Koonfur Afrika.